halkani waa BBC saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 5 galabnimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa galabnimo Arbaca ah 2 bisha Agoosto ee sanadka 2023 barnaamijkuna waa barnaamijkii dunida iyo maanta waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdulaahi qodobada barnaamijkan idinkugu haynana waxaa ka mid ah dagaal culus oo ka socda qaybo ka mid ah gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya maxay orodyahanada caalamiga ah ee Soomaalida ka yiraahdeen natiijada aan wanaagsanayn ee ay Nasra ka keentay tartankii orodka Shiinaha federeeshku asaga qofta rab iska xusha hadii runta maanta laga hadlana aan waxna ma qarinayo markii oo ciyaaro la tagayana dad ayaa la iska kaxeystaa gabaraha bari loo yahay mid wax loo yahay mid saan loo ayaa la iska kaxeystaa bis hal wiil ama hal gabar mar lagu daraa dadka daadoodu ay ka weyn tahay 22 sano jirka ee ku nool Minnesota oo loo ogolaaday isticmaalka daroogada xashiishka qayb ka mid ah mucaaradka Puntland oo madaxweyne Deni ku eedeeyay inuusan daacad ka ahayn in doorashada ku dhici doonto waqtigeeda doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo waa rabnaa laakiin waa inay ku dhacdaa wax la og yahay la isku waafaqsan yahay sidii Puntland ay ahaan jirtay in doorasho loo dhan yahay oo dadkeedu isku waafaqsan yahay doorashada madaxweynuhu iska madaxa iyo koox isaga la socoto yar waxa iska leh dadka reer Puntland hogaamiyaha xisbiga saddexaad ee ugu weyn Koonfur Afrika oo lagu dhaliilay hadal uu jeediyay qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ciyaarihiina ay ku jiraan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan marka hore se dhageystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Axmed Yuusuf Cadceed mahadsanid Kawsar ruushka ayaa sheegay in madaxweynahooda Vladimir Putin uu Turkiga ka codsaday inuu ka caawiyo sidii ay Moscow hadhuudhkeeda ugu dhoofin lahayd dalalka Afrika ee nugul isla markaana ruushku uu sii wado beegsiga shabakada cuntada ee Ukraine kadib markii ay wada hadleen Vladimir Putin iyo madaxweyne Erdogan bayaan ka soo baxay Kremlinka ayaa looga hadlay rabitaanka ruushka ee iskaashiga Turkiga iyo dalalka kale marsii horeysay duqeyn ay geysatay diyaarad aan duuliye lahayn oo ka dhacday mid ka mid ah dekedaha webiyada ee Ukraine ayaa lagu soo waramayaa inay geysatay khasaare xoogan Ismail oo ku taal webiga Danube ayaa noqotay xudun muhiim ah taas oo muhiim u noqotay dhoofinta raashinka kadib markii ruushku uu meesha ka saaray heshiiskii Turkiga uu dhexdhexaadinayay xukuumadda Kiev u ogolaanayay inay cuntada ka dhoofiso badda madow kooxda ololaha doorashada ee Donald Trump ayaa sheegtay in dambiyadii ugu dambeeyay ee lagu soogay Trump ay yihiin faragelin doorasho Trump ayaa lagu wadaa in Khamiista uu ka soo muuqdo maxkamadda si uu u wajaho eedeymo la xiriira inuu qorsheynayay in uu meesha ka saaro codbixintii ugu dambeysay ee madaxtinimo kooxdiisa ololuhu waxay eedeymahaasi ku tilmaameen ugaadhsi ka dhanaha Mareykanimada iyo inuu la mid yahay cadaadiskii lagu hayay Naaziyiinta Jarmalka iyo midowgii Sofiyeeti eedeynta ayaa lagu sheegay in Donald Trump uu ogaa inuu been sheegayay markii uu ka cabanayay wax isdabamarin lagu sameeyay codbixinta 6 eedeysane oo kale ayaa liiska ku jira si rasmi ah looma magacaabin balse warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay inuu ku jiro qareenkii hore ee Trump Rudy Giuliani xisbiga ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashada guud ee dalka Thailand Move Forward ayaa u muuqda mid laga saarayo dawladda soo socota ee dalkaasi kooxda siyaasadeed ee ku soo xigta tirada ugu badan ee kuraasta ayaa sheegay inay rajeynayaan inay sameystaan isbahaysi aan ku guuleysan doorashada sanadka Thailand oo xubnahooda ay gacanta ku soo doorteen militarigu ayaa mar hore ka hor istaagay hogaamiyaha Move Forward inuu noqdo ra'iisul wasaare senataradu waxay u arkaan ajandihiisa gaar ahaan la xiriira boqortooyada mid aad u xag jira balse in xisbiga ugu weyn awoodda laga xayuubiyo waxa ay keentay mudaharaadyo mid ka mid ah mudaharaadyaasha oo ku sugan bannaanka xarunta xisbiga Pheu Thai ayaa muujinaya sida ay uga xun tahay go'aankan waan gubanayaa weligay ma moodaynin inay ka baxayaan ballamihii ay qaadeen waxay samaysteen isbahaysi dhammaan 8 xisbi oo ah xisbiya dimuqraadi ah waxaan rabnaa Move Forward iyo xisbiga Pheu Thai
inay gacmaha ku hayaan oo ay sameeyaan isbahaysi dimuqraadi ah. hadda waa wakhtigii dowlad dadka loo dhisi lahaa. aad ayaan uga niyad jabsanahay in xisbiga Pheu Thai sidaan sameeyo. in ka badan 100 qof ayaa lagu xiray gobolka Haryana ee dalka Hindiya intii ay socotay 2 maalmood oo rabshado beeleedyo ah, kuwaas oo ay halkaasi dadku iskaga hor yimaadeen. xubno ka tirsan kooxaha Hinduuga ah ayaa mudaharaad ka dhigay caasimadda Delhi kadib markii dad Hinduu ah isniintii lagu weeraray magaalada Nuux oo ay u badan yihiin muslimiintu. muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya booliska oo isku dayay inay xakameeyaan dad aad u badan oo dibadbaxayay. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay rabshadahan, waxaana inta ay socdeen la biliqaystay dukaamo ganacsi, dabna la qabadsiiyey. mas-uulka ugu sarreeya gobolka Haryana Monahar Lakhatar ayaa ku baaqay in la isdejiyo isagoo sheegay in lala xisaabtami doono dadkii falkaasi geystay. wafdi ka socda urur goboleedka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa la filayaa in maanta ay gaaraan dalka Niger iyadoo ay socoto dhexdhexaadinta afgembigii toddobaadkii hore dalkaasi ka dhacay. hogaamiyaha ugu sarreeya muslimiinta Nigeria ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay wafdiga. waxaa hogaaminaya taliyihii hore ee militariga Nigeria Abdulsalam Abubakar. saraakiisha difaaca ee dalalka ECOWAS ayaa ku kulmaya caasimadda Nigeria ee Abuja. ururkan ayaa muddo 7 ah horey ugu qabtay militariga Niger in ay xilka dib ugu soo celiyaan madaxweyne Mohamed Bazoum. ma aysan meesha ka saarin isticmaalka awood ciidan si xaaladda loogu soo celiyo sideedii hore. diyaaradaha Faransiiska ayaa dadka u dhashay dalalka Yurub ka daadguranayay dalka Niger. dowladda militariga ayaa ku dhawaaqday dib u furista xuduudaha Niger ay la wadaagto dalalka Algeria, Burkina Faso, Libya, Mali iyo dalka Chad. ururada shaqaalaha dalka Nigeria ayaa magaalooyin badan oo dalkaasi ka tirsan waxa ay ka wadaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan sare u kaca maciisha iyo in meesha laga saaro kabitaanka shidaalka. qorshahan ayuu hareeyay musuqmaasuq. dowladduse waxay sheegtay inay ku badbaadisay in ka badan $1 bilyan oo dollar. dibadbaxayaasha magaalada caasimadda ee Abuja ayaa u dhaqaaqay dhanka baarlamaanka. waxa ay qaadayaan tallaabadan kadib shir 2 maalmood u socday dowladda iyo ururada shaqaalaha oo ku dhammaaday natiijo la'aan. isku day lagu doonaya in lagu dhimo qiimaha nolosha ayuu madaxweyne Bola Tinubu waxa uu ku fasaxay cunada kaydka istiraatiijiyadeed ee dalkaasi, waxa uuna ballan qaaday inuu sare u qaadi doono heerarka mushaharka ugu yar ee dalkaasi laga qaato. warkii caalamka ee BBC-da galabnimada wanaagga intaas. Kawsar. mahadsanid cadceed. waa hagaag galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilaabnay dagaal culus ayaa ka socda qaybo ka mid ah gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya kaasoo u dhaxeeya maleeshiyo deegaanka iyo militariga dalkaas. warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in xoogaga Fano ee la dagaalamaya ciidamada ay qabsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada taariikhiga ah ee Lalibela. jabhadda oo kasoo jeeda qowmiyadda Amxaarada ayaa la sheegay inay diidan tahay hubka dhigis ay bishii Abriil shaacisay xukuumadda federaalka oo lagu sameynayo ciidamada ay deegaanada gaarka u leeyihiin. Fano ayaa xukuumadda Addis Ababa ka gacan siisay dagaalkii ku dhawaad 2 sano ay kula jirtay xoogaga Tigray. faahfaahinta dagaalkaas waxaa warbixintan ku eegaya Xasan Sheekh Cumar. dagaaladan ayaa ka dhacay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya, kaasi oo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka. dadka ku nool magaalada taariikhiga ah ee Lalibela oo BBC-da la hadlay ayaa ku tilmaamay isku dhacyadan hubaysan kuwa qasbay in la joojiyo duulimaadyadii diyaaradaha ee deegaanka. dhaqdhaqaaqayaasha xiriirka la leh maleeshiyaadka loo yaqaano Fano ayaa sheegaya in ay gacanta ku hayaan garoonka diyaaradaha ee magaalada, laakiin BBC-da ma aysan u suurtagelin in si madax bannaan ay u xaqiijiso sheegashada. dagaallo ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa ilaa 4 magaalo oo kale, kuwaasoo qaarkood ay dadka deegaanku ku tilmaameen kuwa culus. afhayeenka ciidamada difaaca Itoobiya Cornel Gadnet Adana ayaa u sheegay wariyaasha in ay qaadayaan tillaabooyin ka dhan ah kooxaha hubaysan ee ku shaqaynaya magaca Fano. toddobaadkii hore ciidamo safar ah ayaa lagu weeraray 2 aag oo ka tirsan gobolka. sawirro lagu faafiya baraha bulshada ayaa muujinaya wadooyin dhowr ah oo lagu xiray geedo iyo dhagaxaan si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa ciidamada. urur u dooda xuquuqda bulshada gobolka Amxaarada ayaa waxa uu xaqiijiyey isku dhacyadan ka dhacay gobolka Amxaarada, isagoo walaac ka muujiya ammaanka dadka rayidka ee ku nool gobolkaas. xasan sheekh cumar waa uu mahadsan yahay. haddaba si aan xog dheeraad ah uga helno dagaalkaas iyo waxa uu salka ku hayo
ayaa waxaan khadka telefoonka kula hadlay Xirsi Cabdulaahi Xirsi Neero oo ka faalooda arrimaha Itoobiya. runaantii dagaalkani markii ugu horeysay TPLF-tu iyo dowladda Itoobiya ciidamadeeda ay isku dhexeen ciidamadan Faano qayb bay ka ahaayeen dagaalkii dhul ay ku sheeganayeen baa jiray gobolka Tigreega Walqayd iyo meelo kale ay muddo dispute ka jiray lahaanshaheeda Amhara waa iskale mise Tigreega waa iskale marka dhulkii ay qabsadeen bariga Tigreega lala dagaalamayay baa la leeyahay dhulkii ka kaca arrinta dhulka kow iyo taa ah in ay TPLF-tu ay aad u kala fogeeyeen ay la dagaalameen oo heshiis ay dowladdu la gashay. Sida aad sheegtayba maleeshiyada Faano waxa ay ka garab dagaalamayeen ciidamada militariga Itoobiya xilligii uu socday dagaalka Tigray. Hadda marka maxay si gaar ah u qoonsadeen oo khilaafkan keenay? khilaafkan runtii dhul ay qabsadeen oo hadda ay gacanta ku hayaan ay sheeganayeen muddaba deegaanada loo kala qaybiyey TPLF-tu ay xukumaysay gobol iyo laba midkood oo ay Walqayd ka mid tahay oo iyagu hadda gacanta ku hayaan baa laleeyahay ka kaca deegaanadii iyo borderskii siduu ahaan jiray lagu celiyo haddii aad rabtaanna si referendum ah oo dadka afti la weydiinaya ayaa lagu kala baxaya iyo maya dhulka iyaga anaga waan haysanaa waan qabsan dhulkana nagaa lahayn kama kacayno taasi waa qodobka ugu weyn ee hadda ay dagaalku uu ka socdo qodobka labaadna waxa weeye TPLF-kii oo iyagu ay kala fogaayeen muddada nacaybsho badanna ay ka dhexaysay oo dowladda Itoobiya la heshiisay oo siyaasadii dalka iyo directionskii iyo politicskii Itoobiya hadda wax iska bedelay oo nimankii dalka haystay ama OPD-ooda ama qoladii oramada ahayd oo TPLF la heshiisay iyo dowladda federaalka oo iyaguna ay ka biyadiitan yihiin ay moodayaan in iyaga la sideline gareynayo dhinac loo yar joojiyey oo marka labada arrimood way ka digsan yihiin Eritreana qayb bay ka tahay oo warar aan xog badan laga hayn oo ciidamadan Faanooda inta badan waxa lagu soo tababaraa baa la yidhi Eritrea iyaduna labada arrimood laftigeeda ka biyadiitan yaa qayb ka ah iyadana oo riixaysa dagaalkan Faano. Marka dagaalkan u dhaxeeya jabhadda iyo dawladda ma laga yaabaa inuu baaho oo sidii dagaalkii Tigray oo kale heerkaas ma gaarsiisan yahay? Ma gaarsiisano nimankii TPLF-tu iyagu waxay kaga duwanaayeen midnaha kale ee dalka dad isku duuban oo isku hadafa oo 30 sano dalkan nimcadiisa iyo maamulkiisa gacanta ku hayay bay ahaayeen oo laga faramaroojiyey awoodii dalka qowmiyad ahaan waa dad isku duuban dagaalka uu ka go-an yahay bay ahaayeen mucaarad iyo muxaafid heshiis bay ku ahaayeen laakiinse kuwan axmaarada waxaad moodaa in yaroo kooban oo xag jir ah in ay dagaalka wadaan dagaalkuna inuu sii fidin baa laga yaaba mar hadday iyagu kala qaybsan yihiin muddo yarna uu iska soo dhammaado ayaa suurtagala inuu sii fogaani haddii aynan Eritrea dabada ka riixin ama dagaal ay ka dhex dhexeen labada dal Eritrea iyo Ethiopia oo markaa ay chance halkaa opportunity ka helaan mooji laakiin sida kale haddii ay dagaalku ku kooban yahay Faano inuu sii daba dheeraado u malayn maayo inuu sii daba dheeraan doono. Eritrea marka la eego marka kaalin intee la eegayay ku leedahay amaba ay ku yeelan kartaa dagaalkan hadda socda? runtii Eritrea iyadu laftirkeeda heshiiskii ay TPLF Ethiopia dowladeedu ay la gashay qayb ka ma ahayn dalkana gudaha ay ku jirtay dagaalkina qayb ay ka ahayd dagaalkii hore waxay ka biyadiideen heshiiska sidii loo maareeyay maalinta ka dambeyso Ethiopia iyo Eritrea si kala fogaanayaan waxaad moodaa xataa safaaradihii waliba especially Eritrea safaaradeedu u yeeratay marka waxaa lagu tuhmayaa hadda ciidamadan Faano intooda badan bayskooda inuu Eritrea yahay lagu soo tababaro gudaha haddana waa markii ugu horeysay xad Eritrea iyo gobolka Axmaaradu ay yeeshaan markii dagaalkii laga soo noqday maadaama dhul fara badan oo Tigreega ku jiray markii hore ay hadda Axmaaradu gacanta ku hayaan xad bay markii ugu horeysay ay yeesheen marka halkaana carqalad ka jirta iyo ka biyadiidis heshiiskii Pretoria Ethiopia iyo TPLF kale marka inay dabada ka riixayaan baa lagu tuhmayaa heshiiskii ay ka biyadiideen marka inay qayb ka yihiin baa lagu tuhmayaa. Maamulka iyo shacabka ku nool gobolka Amxaarada ee Ethiopia ma taageersan yihiin jabhadan dagaalka kula jirta ciidamada dawladda? way ku kala qaybsan yihiin dad badan oo taageersan way haystaan laakiin dadku ma taageersan oo 100% taageero laakiin way ka haystaan qayb kamid ah oo bulshada dadka Axmaarada ee gobolka ku dhaqan. kaasi waxa uu ahaa Xirsi Cabdiqaadir Maxamed Xirsi Neero oo ka faalooda arrimaha Ethiopia oo iga waramayay waxa uu salka ku hayo dagaalka ka socda qaybo kamid ah gobolka Amxaarada ee dalka Ethiopia wali halka aad nagala socotaan waa BBC.
BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay markana wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliya iyo urur ay ku midaysan yihiin jaamacadaha Muqdisho ayaa labaduba iska fogeeyay inay wax ka ogaayeen qaabka lagu soo xushay Nasra Abuukar oo natiijo aan wanaagsanayn ka keentay tartanka orodka 100 mitir oo ka dhacay wadanka Shiinaha. baraha bulshada ee Soomaalidu ku wada xiriirto ayaa si weyn looga qaada dhigayay natiijada Nasro oo xitaa qaar ka mid ah warbaahinta caalamka ay ku tilmaamtay tii ugu liidatay ee laga diiwaan geliyo tartan noocaas ah. qaar ka mid ah orodyahanada caalamiga ah ee Soomaalida ayaa dhankooda dhaliilay fadeexadaas oo ay ku eedeeyeen xiriirka ciyaaraha orodada ee Soomaaliya. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa u waramay Axmed Badar. horta marka hore waxay ka qayb galeysay sida ay noo sheegeen qoliyaha gabadha halka u diray tartanka jaamacadaha oo lagu qabanayay dalkaas China. gabadhu waxay ka socotay sida ay sheegeen mid ka mid ah jaamacadaha dhiganaysa oo dalka sida ay ku timid, laakiin nidaamka ay ku timid ee gabadha halka ku tagtay iyo hanaanka lagu soo xulay iyo cidii soo xushayba oo hawl aan hadda aan baaritaan iyo guddi aan u saarayno ayadu qalad ma lahan, laakiin waxa qaladka leh ama mas'uuliyadda qaadi doono cidda hawshaas ku abaabushay ama meesha gabadha geysay. marka waxaad leedahay wasaaradda ciyaaraha kama aysan warqabin gabadhani ka qayb galaysa tartanka caalamiga ah ee lagu qabtay Shiinaha. wasaaraddu inay gabadhan u baxayso maalinka ay baxaysay ayaa lagu soo wargeliyay maalinka hore oo lagu leeyahay Britol ciyaarahan ka socota jaamacadaha dalka mid ka mid ah oo athletiga ayaa maxaa la dhahaa ka qayb galayso koobka jaamacadaha China ka dhacay. nasiib daro annagu xiriirada sidii ku shaqeynayaan waa qaab xeer jajabaan ugu nimid xafiiska oo qola kasta inay ay wax soo diyaarsadaan wasaaraddu information last minute ay ku soo wargeliyaan, balse aan muddo dadaal ka wadnay waayidanba reforms aan ugu sameyn lahayn oo wasaaraddu wax kasto ciyaaraha heer policy ama international wixii aadayaba inay wasaaraddu maamusho ama ay manage garayso ay kor kala socoto kor joogteen ku yeelato. roolkaas oo adiga meesha ka maqnaa ay uga faa'iideysanayaan sidii kara mid xigto annagu siday gabadhaas ku timid ku soo tartantay sidaan aaminsanahay waxa waaye qof hadduu heer caalami ama heer international aaday waa inuu marka hore isreereebka ku soo baxo. koobka isreereebka localka dalka markuu ku soo baxo ama jaamacadaha markii localka loo qabtay ay soo baxdo ayay ahayd gabadhaas hadday gabadha ku guuleysatay championka inay halkaas aado, laakiin sida noo muuqato intaasba ma soo marin. qof la iska soo xushay oo si dhabarka taabashaha lagu soo qoray ayay u muuqataa sida ciyaarteedan ka muuqatay. wasiir waxaad sheegtay inaadan ka warqabin in gabadhaasi tartanka ay ka qayb galayso oo ahaa tartan caalami ah. marka in gabar ka qayb galaysa kor tartan caalami ah matalaysana qarankii Soomaaliyeed aysan wasaaraddii ciyaaraha ka warqabin soo lama oran karo meesha qeyr mas'uulnimo ayaa ka jirta. warka waa kugu bilaabay inaan mar kale ku saxan rabaa heer qaran ma ciyaaro ka qayb galayso mana aha ciyaaro qaran waxay ka qayb galayso waa ciyaaro heer jaamacadeed ama tartan jaamacadeed waay. marka qaran iyo jaamacad waa kala duwan yihiin. kuwani waa jaamacadahan ururka jaamacadaha oo madaxa banaan ayaa iska leh. wasaaradda sideeda waxay ku leedahay hubin kor joogteen iyo u fududeen safarada, laakiin intaba anaga nagama soo marin aan ka ahayn wax kasta maxaa la dhahaa ayaga qolyihii oo markaas u fududeynay annaga wax roola oo wasaaraddu ay ku lahayd. roolka marka aan sheegay wax kala ma ogin taankeedan waxaan ka hadlaa waxay tahay qaabka lagu soo xulay ma tartanay inta la qabtay gudaha ay soo guuleysatay maye ma si kale wax roola ay wasaaraddu ku leedahay ma jirto. taas waxaan rabnay inaan cadeyno oo aan ku cadeynayn mar walba aan kugu celcelinahay, laakiin ogaal inayna ogeysiiyeen inay baxayso waan ogeyn, laakiin wax roola qaabkay ku imaaday lagu soo xulay kriteeriyada lagu soo qaatay intaba waxaan anaga war u hayna maahan. waana arrin aan baaritaan ku samayn doono hadduu la yiraahdo cidda mas'uuliyaddaradaas ay ku soo baxdane aan kula xisaabtami doono. marka mas'uuliyadda wixii dhacay ay khaladaadka dhacay idinku ma qiranaysaan oo qayb kama tihin? annagu markaan xafiiska nimidaan si aan hawshaan mas'uuliyaddeeda u qaadano dhammaan xiriiradan isugu wacay muddo aan xafiiska joogo 1 bilood ayaan xiriirada dalka 14 ka jiray iyo guddiga Olombikada isugu yeeray. waxyaalaha aan kala hadlay oo aan miiska hordhig waxay wada shaqeyn iyo wax kasta oo horumarinta ciyaaraha sportska dalka iyo guud ahaan dibaddaba in wasaaraddu ay roolkeeda laga sii wasaaraduna lagala shaqeey idinkuna idin fudays wixii wada shaqeynaa. laakiin nasiib daro xiriiradu waxay ka wada sinaayeen caqliyad ah annagu waa hay'ad madax banaanaanahay ama xiriir madax banaanaanahay dastuuraan qoranay waxaan ku xirannahay hay'ad oo caalamka oo xiriir caalamka ka dhisan oo dhigeen ah. waxyaalaha marka mentality-ga oo ka dhisnaa ama ay ku soo dhisnaayeen xiriiradeena muddadii sanadadii u dambeysay burburka dalka dawlad la'aanta ahayd ayay weli ku sii shaqeynayaan ku sii adkaayeen. mar aad la hadashay warbaahinta
waxaad raaligelin ka bixisay gabadhaasi iyo qaabka lagu soo xulay iyo siday wax u dhaceen marka taa macnaheedu ma tahay in aad qirateen mas-uuliyaddii ahayd in wasaaradda ciyaaraha doorkii laga rabay ay ka soo bixi weyday waxa aan raaligelinta ka siinayno bulshadu maaha wax annagu aan intaan sifo qaldan usoo xulna maahane waxaan raaligelinta ka bixinayno waxa waaye arrinka meeshaas ka dhacay foolxumada badan bahda sportiska gaar ahaan ayadoo la heli karay gabdho orodyahanna ama ciyaartooy qaybtood ay nagu tababaranayaan ama ay ku xareysan yihiin magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia marka waxa annaga bulshada raaligelin uga siinayno hay'ad bahda sportska waxa foosha xumaa meeshaas ka dhacay balse waxaan leenahay dhanka kale gabadhu meesha tagtay ayadu wax eed kuma lahayn ayadu way dadaashay inta tabarteedana way meesha keentay kaasi waxa uu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud oo u waramayay Axmed Badar orodyahanada caalamiga ah ee ka falceliyay arinta Nasro waxaa ka mid ah Cabdi Nageeye oo u ordo dalka Netherlands oo maradoonkii Olimbikadii xagaaga 2020 ka dhacay Japan ku guuleystay kaalinta labaad qadka telefoonka ee buuraha Iten ee dalka Kenya ayuu gordhaweyd igu waramay wax Olympic ah iyo wax ciyaaraha adduunka ma qayb galin waa tartan jaamacadaha ay ka qayb gashay waa tartan iska heer sare iska ah lama dhigi karo in iska yar la yareysan karo maahan marka waxay noqotay lama filaan anu sababta iska garanaya laakiin ceeb weyn noqotay kulli intaas aan ku soo koobahay taariikhda marka dib loogu noqdo inta aad ka xasuusato hore ma u dhacday in Soomaaliya ay natiijo sida u liidato ay ka keento tartan orod ah ku doonaba ha ahaadee waxa la dhihi karaa may ku u dhowna way dhaceen isla maamulkan oo mas'uul ka yahay maadaama marka ciyaaraha adduunka hadaad waxna haysan waxa la dhahaa wax ma kari karo hadaa gabar wiil haysan hada wiil orday wiilka si fiican u orday wareegii koowaad uu ka gudbay waxaan u maleynayaa wareegii labaad inuu gudbi doono qof ka sheekeynaysa ma lahan because gabadhana wixii dhamay la wareegtay atashkii dhamay marka waxa waaye way ayaa hada qof gabar loo diraya oo aamad korawal tababarinba qof aan tababarnayn maxaa marka meesha loo diraba sababta loo dirin waa in ayaga la weydiiyo diray anagu waan garanay laakiin ayagu marka ka hadlaan sida loo soo xushaad mar soo hadal qaaday sidee xiriirka orodada Soomaaliya u soo xushaa dadka ka qayb galaya tartanka orodada marka loo eego ama loo barbar dhigo wadamada kale ee caalamka federeeshku asaga qofta rab iska xusha hadii runta maanta laga hadlana aan waxna ma qarinayo markii oo ciyaaro la tagayana dad ayaa la iska kaxeystaa gabaraha bari loo yahay mid wax loo yahay mid saan loo yahay ayaa la iska kaxeystaa bis hal wiil ama hal gabarna marmar waa lagu daraa marka waxaan ilaahay Soomaaliya wax soo ka gudubtay intii hore dagaalo sokay wax kasta laga soo baxay iyo laakiin maanta Soomaaliya meel fiican arrintu maraysa social media jira marka waxaan oo kale hadda aniga waxaan ilaahay federeeshinku sidoo isaga dhan sidoo oo wada yahay askaga tago meesha 15 sano iska heyseen iska maamulanayeen meesha jiil cusub ha u dhiibada xiriirka Soomaaliya marka laga soo tago Cabdi waxaad noo sheegtaa wadamada kale ee caalamka marka ay xulanayaan qofka ku metelaya orodka maxay ku soo xushaan ayaga iska doorta hadda kaliya ayay dhacday Cabdi Bilay u dambeeyay hadda ayay dhacday wiil Khadar Bashiir oo Yuusuf oo hadda la jooga oo soo gacan qabtay managerkii ay saaciday ayaa hadda ku orday qualification la iska rabay adduunyada waxa leedahay qualification ay leedahay saacad ayaa laga rabaa saacadaas 100 mitir ka bilaabanaysa 200 400 waran tuurka booditaanka maratonka waxaas oo saacaday wada leeyihiin ninka saacada sameeyay ayaa tagaya marka Soomaaliya Cabdi Bilay u dambeeyay qof saacad sameysaba saacada ku tagtay marka maxaa dhici jiray Olimbikada ciyaaraha adduunka waxay casuumayaan waxay leeyihiin maadaama ka tirsan yihiin ciyaaraha xiriirka adduunka iyo ciyaaraha adduunka Olimbikada oo marna 4 sano dhac mar 2 sano dhac ciyaaraha adduunka wiil iyo gabar keensada wiil iyo gabar waxa loo jeedaa iska roon xoogay qualification gaarin taas waa ciyaaraha Olimbikada la soo dhaafay wiil iska roon ayaa tagay 500 saacad ma haysan laakiin wuu fiicnaa gabadha Ramla oo feerka ciyaarta ayaa Soomaaliya uga qayb gashay Olimbikada aad u fiicneed muddo ayaad orodadan ku soo jirtay Cabdi waxa laga yaabaa xitaa mararka qaar inaad guuldaro la kulantay bal waxaad noo sheegtaa sida uu qofka dareemo markuu natiijo noocan oo kale ah keeno sida waxa hadda haysta Nasro oo kale niyad jabka iyo dhaliisha ay wajahayso gaar ahaan baraha bulshada wala gabadhan waa laga soo waalay waa gabar yar oo culays weyn la dul saaray hadalkay ku hadlaysid dad dhaysid qof bilid ordo ma jirto 10 mitir qof dhahday wallahi waxa ku tala ma garanayo macnaha heerka aan gaarin halkaas maanta la maraya waa too much anu waxaan xasuustaa maalinta mid soo tababartay oo saacada Olimbikada rabina sameeyo 2015 laga rab saacadina sameeyo ciyaarihii Olimbikada Rio de Janeiro oo 16 ka dhacay ahaayeen si daacad oo maana tababaran orodkii si xun ayaan orday waxaan xasuustaa halka maran oo aad ilmo iga timid kaamiradan iska qarinayay oo iska tirtiray kabeed maxaa marada uma noqonayo taa marka waxaan la jeedaa markaad soo dadaashay ama adigu aad ogtahay inaad si fiican u tababaran dhagaha laga tumo waad dhigi kartaa mar gabadha familkeeda ka soo wal gurigeeda ka soo kaxiyay gabar reer sport ma baahanba marka sidee looga baaqsan karaa in arintan oo kale ay dhacdo mustaqbalka
waxaa looga baaqsan karaa in darashka apologize bixiyaan in arrintan sida runta ay u sheegaan iyo waxna la qarqarinin saan sheegan dee 15 sano meesha la soo hayay dee waxa the best way ah inay new generation diibaan anako diyaar oo inaan caawino managerka adduunka weyn ee Gabriel Selassie Kenisa Bekele Elite Kipchoge Kenya maanta ninka u laacabsana ina saacadna waa rabnaa ina xaq qaban waa rabnaa wasiirka waxaan ka codsanayaa sportiga inuu arrintan aad uga hadlo dad cusubna la keeno dhalinyar ah waxaan fahmaya waa in iskuulada laga soo bilaabo kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nageeye oo u orda dalka Netherlands kana mid ah orodyahanada caalamiga ah ee Soomaalida oo ii waramayay markana qayb ka mid ah mucaaradka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuusan daacad ka ahayn ballanqaadkii uu xalay sameeyay ee ahaa in doorashada madaxtinimada ay ku dhici doonto waqtigeeda madaxweyne Deni ayaa xaflad xalay lagu xusayay 25 sano guuradii ka soo wareegtay asaaska Puntland waxa uu ka sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay in doorashada ay dhacdo 8 January ee 2024 oo aanu jiri doonin muddo kororsi dawladda aan mas'uulka ka ahay khaasatan golaha xukuumadda iyo anigaba waxaan dadka reer Puntland u sheegayaa oo cod dheer ugu sheegayaa dawladdan aan madaxda ka ahay waxay rajaynaysaa ama diyaar u tahay inay doorashada xilligeeda ku qabato niyad kororsi aan naguma jiro oo aan ognahay dhibka uu leeyahay waxaan rabaa dadka reer Puntland mar dambe inaan lagu beer la xawsan madaxweynuhu ma hadlaa la yiri maanta in la hadlo waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayga inaan u shaqeeyo waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo axsaabta reer Puntland leeyahay sharciga la dhowro waxaan soo dhaweynayaa xisbiyada buuxiyay shuruudo xisbiga noqday waxaan rajaynayaa in la isku ixtiraamo waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbigayga haddiina laga guulaysto inaan xilka si sharaf loo wareejin doono haddaadna doorataanna waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh oo daacadnimo aynu ugu shaqayno dalka nabadda ha loo daayo deganaanshaha laga wada shaqeeyo dadka yaan la marin habaabin dawladda tani waxay ku sifaysan tahay sarraynta sharciga ilaalinta dimuqraadiyadda iyo in ay aragtiyaha ka duwan dhagaysato waxaan rajaynayaa Puntland iyo Soomaaliyaba inay iska ilaawaan in dadka bini'aadamka ah wuxuusan rabin lagu jajuubo ee loo ogolaado inay masiirkooda iyo aayahooda ka taliyaan madaxweyne Deni ayaa sidoo kale sheegay in muddada harsan lagu diyaarin karo doorashada waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan rajaynayaa xubnaha ururka doorashooyinka in si degdeg loo soo magacaabo dalka la jiheeyo 5 bilood oo dhiman waxaan waaye arag ku nahay 30 degmo oo baaxad weyn leh ayaa 5 bilood min diiwaangelin ilaa doorasho ku qabanay way nagu filan tahay dadkeenana waa ku kalsoonnahay diyaarna waxaan u nahay waxaa naga badan inaan dalka gaarsiinay doorasho qof iyo coda oo 25 sano la sugayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayuu kaasi ahaa oo khudbad xalay jeedinayay haddaba siyaasiyiinta aan ku qancin ballanqaadka madaxweynaha Puntland waxaa ka mid ah Axmed Ciise Cawad oo u sharaxan hogaaminta Puntland isla markaana mar ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxaan marka hore weydiiyay bal sida uu arko khudbadii xalay ee Deni walaal khudbadaas wax badan oo macna igama bixin waxay la mid tahay khudbooyinkii uu awal jeedin jiray oo ku dhisnaa jahawareerinta iyo macangegnimada iyo faanka mar haddii madaxweynuhu sheegay in doorashada ay xilligeeda ku dhacayso oo xisbiyana lagu tartamayo xisbiyadana dastuurku ogol yahay walaaca kale ee aad qabtaan muxuu yahay may dastuurku ma ogola wax kasta oo uu sameeyey maamulkaani waa غير dastuur waa wax dastuurka khilaafsan weeye marka horta dastuur meesha ma yaalo ninkaan odaga dastuur kuma dhaqmo dastuur annaga rabna annaga maxkamadda dastuuriga geynay dacwo aan ku muujinayno in waxaan dastuuri ahayn waxaa dastuur ahaa 3 xisbi hadda maalmo gudahooda waxaa haddana dastuur ah 8 xisbi marka horta dastuur meesha ma yaalo marka dastuur la'aantaas waa diidanahay su'aasha ay weydiiso waxa weeye maxaa diidantiin marka ku dhaqanka dastuur la'aanta iyo jabinta dastuurka waa diidanahay waxaan kaloo diidanahay
doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdo waa rabnaa laakiin waa inay ku dhacdaa wax la og yahay la isku waafaqsan yahay sidii Puntland ay ahaan jirtay in doorasho loo dhan yahay oo dadkeedu isku waafaqsan yahay doorashada madaxweynuhu iskama laha iyo koox isaga la socoto yar waxa iska leh dadka reer Puntland marka waxaan rabnaa inay doorashada waqtigeeda ku dhacdo laakiin ay ku dhacdo waxaan hal qof uusan lahayn oo hal qof uusan wadan wararka aanu helayno waxay sheegayaan in 8 urur ee xisbiyada noqday ay dhammaantood ku qanacsan yihiin in doorashada ay ku tartamaan maadaama cawad ahaan adiga aadan wax xisbiga ka tirsanayn diyaar ma u tahay inaad xisbi ku biirto maxaa ugu biirayaa xisbi yani ma isku idisay constitutionka Puntland wuxuu qabaa qof kastoo muwaadinihi inuu tartami karo waxna dooran karo lana dooran karo marka in xisbiyo ama 3 ha ahaadeen ama 5 ha ahaadeen ama 12 ha ahaadeen uu madaxweynuhu soo qorto ayaan constitutionka waafaqsanay haddii marka uu hirgalo waxa aad diidan tihiin ee ah in xisbiyada lagu tartamo maxaad samaynaysaa waa diidanahay waxaan samaynaynaa waxa weeye inaan diidanahay waxaan ka digaynaa inuu isku dayo ilaa hadda siduu ku soo dhaqmayey wuxuu dimuqraadiyad u bixiyey oo boob iyo jujuuba inuu sameeyaa uga digaynaa waxaan ugu yeeraynaa reer Puntland in 8 January ay dhacdo doorasho dadka reer Puntland ka wada qayb galaan waxaad ku adkaysatay inaad marka diidi doontaan nidaamkan xisbiyada soo taal looma fasiran karo inaadan diyaar u ahayn inaad doorashada ka qayb gasho waa ku sheegay waxaan ku yiri xisbiyada uu ninkan iska soo maamulanayo waa wuxuu isagu rabo inuu ku sii joogo xukunka waxaan rabnaa anagu doorasho dadkoo dhan raalli ka yahay dimuqraadiyadda annaga isaga ka jecel ka badina sharciga ka jecel inaanu ilaalino waa sababta aanu u geynay maxkamadda dastuuriga ah ee dacwad ilaa hadda aan dhageysigeedii sugayno marka annagu waxaanaan rabin waxa weeye wax siciidan isagu uu leeyahay baanaan rabin waxaan rabnaa wax Puntland leedahay doorasho Puntland leedahay dadkeedu leeyahay inay dhacdaan rabnaa ka doorasho siciidan leeyahan ka soo horjeednaa marka waxaad sugtaanba ma go'aanka maxkamadda mise talaabooyin kale aad qaadi doontaan walahi hadda talaabooyinkaan qaadaynaa waa kuwaan kuu sheegay waxa go'aanka maxkamadda waa sugaynaa waa jeclaan lahayn waxaan kaloo sugaynaa codka iyo talada dadka iyaga waxaan kaloo aanu sugaynaa sidaan kuu sheegayo inaanu ugu yeero reer Puntland inay ka digtoonaadaan shirqoolka uu wado maamulka hadda jooga madaxweynaheeda oo rabo inuu isagu meesha ku sii joogo taas lagama yeelayo kaasi waxa uu ahaa Axmed Ciise Cawad oo sharaxan hogaamiyaha Puntland isla markaana mar ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ii waramayay markana saacada Afrikada bari waxay soo gaartay xilliyadii aad nooga barateen inaan dib idin kugu celino qodobada wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Axmed Yuusuf Cadcad ruushka ayaa sheegay in madaxweynahooda Vladimir Putin uu Turkiga ka codsaday inuu ka caawiyo sidii ay Moscow hadhuudhkeeda ugu dhoofin lahayd dalalka Afrika ee nugul isla markaana ruushku sii wado beegsiga shabakadaha cuntada ee Ukraine kadib markii ay wada hadleen Vladimir Putin iyo madaxweynaha Turkiga Erdogan bayaan ka soo baxay Kremlin-ka ayaa looga hadlay rabitaanka ruushka ee iskaashiga Turkiga iyo dalalka kale kooxda ololaha doorashada ee Donald Trump ayaa sheegtay in dambiyada ugu dambeeyay ee lagu soo ogay Trump ay yihiin faragelin doorasho Trump ayaa lagu wadaa in Khamiista soo socota uu ka soo hormuuqdo maxkamadda si uu u wajaho eedeymo la xiriira inuu qorsheynayay si uu meesha uga saaro codbixintii ugu dambeysay ee madaxtinimo xisbiga ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashada guud ee dalka Thailand Move Forward ayaa u muuqda mid laga saarayo dawladda soo socota ee dalkaasi kooxda siyaasadeed ee ku soo xigta tirada ugu badan ee kuraasta ayaa sheegay in ay rajeynayaan inay samaystaan isbahaysi aan ku guuleysan doorashada in ka badan 100 qof ayaa lagu xiray gobolka Haryana ee dalka Hindiya intii ay socotay 2 maalmood oo ah rabshado beeledyo ay dad badan ku dhinteen xubno ka tirsan kooxaha Hinduuga ah ayaa mudaharaadyo ka dhigay caasimadda Delhi kadib markii dad Hinduu ah Isniintii lagu weeraray magaalada Nuux oo ay ku badan yihiin muslimiintu hogaamiyaha ugu sarreeya muslimiinta Nigeria ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay wafdiga waxa uu hogaaminayaa taliyihii ugu horreeyay militariga Nigeria Cabdisalaam Abubakar saraakiisha difaaca ee dalalka ECOWAS ayaa ku kulmaya caasimadda Nigeria Abuja si ay uga wada hadlaan afgembiga ka dhacay dalka Niger
ugu dambeyntiina ururada shaqaalaha dalka Nigeria ayaa magaalooyin badan oo dalkaasi ka tirsan waxa ay ka wadaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan sare u kaca maciishada iyo in meesha laga saaro kabitaanka shidaalka. qorshahan ayuu hareeyay musuqmaasuq. dowladduse waxay sheegtay inay ku badbaadisay in ka badan $1 bilyan oo dollar. axmed yuusuf cadiceed waa uu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee BBC da ee xilligan la joogo. weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii dunida iyo maanta oo qodobada inoo soo socda ay ka mid yihiin ilaa iyo dee maraa'imka qof ma joogo tii maxaasanaysay maxaasigii way xidhay tii maxay tahay ilmo yaraysatay ilmo yaraad waxay la gashay duurkay la gasho way la qaxday oo buurahaasay la gashay ilaaha raxmaanka baanu baryaynaa dacidii islaamahe inuu dadka danaynaysa dee maatida danaynaysana dee waanu doonaynaa in laga dulqaado horta ciidamada Soomaaliland ee dul yaala. waa dadka ka barakacay aagga buuraha gacan libaax ee ay xiisad ka taagan tahay. goordhow ayaad warbixintaasina maqli doontaan. hase yeeshee markan wadahadaladii u dhexeeyey beelihii dhowaan ku dagaalamay deegaano hoostaga degmooyinka Raage, Ceele iyo Cadalle ayaa waxaa laga soo saaray xog ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalkii ugu dambeeyey ee dhex maray labada beelood. 22 qof ayaa lagu sheegay xogta inay ku dhinteen dagaalkii ugu dambeeyey, sidoo kalena lagu burburiyey hanti fara badan iyadoo gaadiidna la kala qaaday. haddaba si aan u ogaano halka ay wadahadaladu marayaan waxaan la xiriirnay wasiirka dib u heshiisiinta Hirshabelle Cabdulaahi Maxamed Cumar, wuxuuna u waramay wariyaha BBC da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan. aad ma tahay meel fiican waxa noo marayaan runtii beelihii Facebook gabagaba uu noo yahay wadahadalkii dadkii dad isu nugulo isagalo ehelay qaraabaha tolay noqdeen marka Facebook-kiina gabagabay doona insha Allah taala adiga maalmo fudan soo aadilayra. wajiga koowaad waxa ku jirta in la ogaado xogta ku saabsan dhibaatadii dhacday intee bay la eg tahay. runtii dhibaatada xal la dhacday oo hanti badanna la halaajiyay oo hanti mataqaanaa sida bilad laan la gubay gaadiid la qaatay dhinaca kalena dad badan ayaa dhintay oo adiga 20 qofood ka badan marka laakiin hadda wixii way dhaceen soo naqamayaan wixii dhintay waxaa lagu heshiiyey inta dhiman in la daba qabto. inta dhiman ee la daba qabanayo sidee looga heshiinayaa? run dadka dhaqamay leeyihiin iyo isfahamay leeyihiin oo dad isla dhashay mudana dirisahay marka meelo laga ambaqaaday leedahay insha Allah taala gacanti dawladeed oo waxaas lagu heshiiyey fuuleena waa dhaxtaadanta. marka hadda wajiga koowaad gabagabaysaan wajiga labaad hawsha idin taala maxay tahay? wajiga labaad hawsha noo taala waxay tahay colaadihii degmada Cadala ka jiro dhan من كو إلى ضماد ماشي عدة تاجن أنا وحنا سوي تجينا وجوش في السنة مركز المشيسين أنا جسوا كلا اللعبان أو دمسكر أنا تجاري دونا إن شاء الله خلافات في دمعة على كجرة يرجع مركي أدوجتين حقتها خسارها لما شهد هدي داوع تاي هدي هنتي لبربري أي تاي سيدي ربطنا بلها أرنتا سيوجه شيء سيسان أو قرط الله قالوا garto waxaa gelaya xeerbeeg taageeraysa anagoo gacan dawladeed la taaganahay ka dawlad ahaan ayaan isu keenida iyo mataqaanaa waxaan leenahay inaan gacan ka siino sidii shirka loo daadiila u socolahay laakiin qaabka loo heshiinayo iyo qaabka loo dhigayo siiqadaas waxaa ku xeerbeegta u taallaa iyo duubabka dhaqanka duubabka dhaqanka iyo xeerbeegtidaasi ma waxay isticmaalayaan xeerarkii hore ee reeraha u yiilay marka dhibaato sidan oo kale dhacdo mise nidaam dawladeed iyo xeer dawladeed baa lagu dhaqi doonaa asal ahaan ba heshiisku waa heshiis bulsho dawladdu wixii bulshada ay ku heshiisay ay dhaqan gelinaysaa marka xeerbeegtida iyo dhaqanku waxay isticmaali doonaan xeerarkii hore reeraha u yaalay deegaanka marka dhibaato noocan ay dhex marto waa ku qasbanyihiin wax dagaalamo ciidan maahayna waa qabiilo doorkiina muxuu noqon doonaa markaa annaga doorkeena inaan korjoogtayno oo shirka caadi lagu soo celiyo hadduu ka bixi tago iyo dabeecadihii iyo curfiga lagu yaqaan hadduu ka bixi tago in lagu soo celiyo waxay ku heshiiyaan awood lagu fuli lahaa inuu diyaarino wajiga labaad ee ku saabsan in xal loo helo colaadaha beelaha kale ee deegaanada Cadale iyo ka jira iyaga goorma doonaysaan inay idin bilowdo wajigaasi waa maasan tahay waa isdaba taagan tahay kan markii laga gudbo ayaa tan kale laga doonaa biidnillahi tacaala taas maqlayseen madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif iyo madaxweynaha State-kuba si official ugu dhawaaqeen inay tanadi ku doontaan kala geli doonaan sidaasana sax rajadaadu maxay tahay in deegaankan nabad lagu soo dabaalo oo colaadda beeluhu ay ka dhamaato 100% rajo ka leenahay laana dadku way dhislaadeen dhibaatadu waa badatay marka waxa meesha wax ka qasfaya ama ummadda isku halaajinayana waxay u badan yihiin dadana gaar ah loo qoryaaleeyo isbaara iyo wax lamida ka bilaabaya shaqada marka isfaham fiican jira waxaasna gacantii dawladeed u taagan go'aano heshiisya laga gaaray aad u badan oo garanta marka insha Allah taala maalmaha soo socdana waxaad farxayna daqli doontaan insha Allah taala xagga amaanka
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dib u heshiisiinta Hirshabelle Cabdilaahi Maxamed Cumar oo u waramayay wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. markana qoysas ay tiradoodu kor u dhaafayso 300 oo qoys ayaa ka qaxay deegaanada go'da weyn Dirimaara iyo nawaaxiga buurta gacan libaax. deegaanadaas ay maalmihii u dambeeyay isku hor fadhiyaan rag hubeysan oo sheegay in dawladda ay la dagaalamayaan iyo ciidamo xukuumadda jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee Somaliland ay halkaas geysay. dadka deegaanadaasi ku sii harsan oo aanu la hadalnay ayaa walwal culus ka qaba in saacad kasta dagaal ka dilaaci karo agtooda halisna ay geli karto noloshooda. haddaba wariyaha BBC-da ee Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad ayaa warbixintan ka diyaariyay. cabsidu waxa ay ku sii badatay dadka deegaanadan markii Somaliland iyana dhankeeda ay geysay ciidamo. qoysaska halkaasi ku nool oo qaarkood aan la hadalay ayaa waxay noo sheegeen in ragga jabhadda ku dhawaaqay ee buurta gacan libaax iyo deegaanada u dhow soo degay aanay iyagu raalli ka ahayn. waxaana ay aaminsan yihiin in jabhaddaasi iyo ciidanka dawladduba ay furin dagaal ay ka dhigeen halkii ay ubadkooda u deganaayeen. inta badan deegaanadan waa laga qaxay sida ay noo sheegeen qoysaskii ku sii haray ee aanu xiriirka la samaynay. intooda aan weli qaxin waa kuwa daqiiqad kasta filan kara in labada dhinac ee jabhadda iyo ciidanka dawladdu ay dagaal ka dul bilaabaan. dadkii ugu badnaana waxa ay qaxeen markii 2 maalmood ka hor ay labada ciidan israrsaasaynay ku dhexmartay deegaanka Diraamira halkaasi oo lagu soo warramay in ciidanka dawladda hal nin kaga dhintay mid kalena uu kaga dhaawacmay. maalintaasi ayaa qoysaskii ugu badnaa ay qaxeen deegaankaasi Diraamirana in cid ku hadhayba ay yar tahay ayay noo sheegeen dadka aanu la hadalay. Kaltuun Axmed Xasan waa mid kamid ah hooyooyinka deegaanka go'da weyn halkaasi ay weligeed deganeed ku tarantay waxaana ay ku haysataa 12 caruur ah. cabsi weyn ayaa markii ugu horeysay soo food saartay. culayska la saaran imka dee weer 24 saacadood halkan baa la soo socdaa iyo waa la is soo galayaa iyo ciidanka uu duulaya kii kale uu soo duulaya waxaan hayna dadka maba shaqeyno maba hadal haynaba haddana waxa xilliga ay soo jeediyay waa wardoon tago waxa la yiri way soo duulaya waa la soo duulaya waa la iskaleeya baa la yiri anna waa wardoon tago rag baan soo warwarayso imka waaniga soo fadhiistan waaniga deeq ku kulamay guriga marka baqdinu xoog wayna haysataa culays baan haysta deena markii hore kuwa buurta ku jira anaga markii galayeen maanaan ogeyn ma halka ka soo bireena maanaan xitaa ogeyn laakiin culays imka waxa nagu noqday ciidamada Soomaaliland soo duldhigtay kuwaas anaga imka culays fara badan nagu haya imka hadii laga qaado iyaga laga qaadanana kuwaas waxay noo jiraan 12 kiiloomitir isma arkayna wadada ka soo galeeyay baxayaan taayada ma hadda soo maraya laakiin saka marka la yiraahdo halka ciidan baa jooga ciidanka uu soo doonanayo waa laba culays eeganaya ilaa iyo Dirimaara imka qof ma joogo tii maxaasigii way xidhay tii maxay tilmeeraysay waxa la gashay duurkay la gasho way la qaxday oo buurahaasay la gashay ilaaha raxmaanka baan bariyana dacidii islaamaha inuu dadka danaynaysa maatida danaynaysa dawaan doonayna in laga dulqaado ciidamada Soomaaliland ee dul yaala aqaladii agtayda ee ugu wada xigay inaan imka afar aqal loo dhaxeeyaan baa ka joogtay oo maqaaxiyada caruur yar oo agoon haysato u shidanaysa oo qofba kama jooga aagayga. Cabdilaahi isaguna waa aabe ku dhaqan isla deegaankan saansaanta colaadeed ay ka jirto. waxa uu qabaa in ciidanka dawladda iyo jabhaduba ay la soo doonteen xabad ay kala soo durkeen halkii murankoodu u yaalay. nimada la yiraahdo fuulay nimankaas deegaanka ma yahayn meel kale ka yimaadeen malay la tashan deegaanka runtii markay soo galeen deegaanka uu ka cadhoobo laakiin dadka deegaanka si guud bay haddana wax u wadaagaan haybahaan dareenka ka wada socdaan laakiin oo de marka hore baashka geesay ahayd laakiin baashka dil la soo wareejiyay makaynimada reedada buurta u soo fuuleen raalli deegaanku kama ahayn raalli kama ahayn laba qodob waxaan garaalay marka hore dadka waxa la yiraahdo mas'uulina way iska soo fuuleen marka xigtana hadee baatidoodii dad meesha ku bashito dadkiisii u bitiisii meesha degan in tusoo laga soo baxo ciidamada lagu soo rooday la isku dulqabso raalli kama aha marka idinka maxay saameyn idinku leedahay marka wax cabsiyo qabtaan iyo jira waxay saameyn walaal ugu leedahay nimanka buurta gacalibaax joogay iyo ciidamada gooyo Dirimaara jooga daway sheeganaya xabada laga soo riday sibilkii way ku soo dhawaanaysaa goob marka wax kasta dhici kara waa la dagaalami karaa hadii ay deebaas u dhaadana iyadoo indhama lahaa dadkii maantida way jeeraysaa marka waxaad tiri dadka deegaanka lalama tashan laakiin xaqiiqadu soo maaha dadka deegaanka qaarkood bay inay ku biireen oo ay ku jiraan iyaguba waa laga yaabaa laakiin adiga kula hadlaya dee dareenkan ay nimadu qabaan iyo taargisa kale lafteeda waa la qabaa laakiin marka xaqiiqada la eego arrimahan ay tirsanayaan iyo meesha laga soo daray taasi dareenkaasi uu igu jira aniga
maalin kasta waxaa ku soo biira jabhadda rag cusub dhinaca dowladana waxaa shalay u dambeysay la geeyay deegaanadaasi ciidan kale oo hor leh sida uu BBC u sheegay xoghayaha degmada Go'da Weyn xoghaya Deeq Cabdi Warsame degmadiisii xaaladan ay ku sugan tahay ayaa warwar ku haysa waxaan oran karaa diri maraay oo kale dhammaan waa laga wada qaxay ilaa 250 qoys way ka baxeen ama miyiga ha ka guuraan ama guryaha ha ka guuraan magaaladii tan laakiin dad adigu ilaa 100 ku dhow ayaa ka tiibuuray tuulooyinka imika isku daroo kale waa la soo sheegay oo waliba hadda ciidan u degin codkaas ayaa u dambeeyay warbixintii uu Hargeysa ka soo diray Sidiiq Maxamed Burmad wali halka aad warbixinadaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC dhageysa BBC Somali mobile-kaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com وهجاج مركنا جوليوس ماليما هجاميها حزب السدحاد أجوين كونفور أفريقيا The Economic Freedom Fighters ayaa waxa uu sheegay inuu sii wadi doono hadalka ah Kill the Boer oo uu la jeedo dil cadaanka beeraha leh isagoo sababtuna ku sheegay inuusan ahayn hadal nacayb ku salaysan tani ayaa imanaysaa kadib markii laba hogaamiye mucaarad ay sheegeen inay dacwad ka dhan ah Malema u gudbin doonaan qaramada midoobay iyo booliskuba iyagoo ku eedeeyay kicin dadweyne سعيد فورا oo si dhow la socda arrimaha Koonfur Afrika ayaan goordhaweyd weydiiyay arrimahan ninkan Julius Malema waxa uu dabaaldegayay 10 sanadii ka bacdi markii uu aasaasay xisbigiisa EFF marka waxa uu stadiumka weyn ee FNB ee ku yaala magaalada Johannesburg isugu soo ururiyay kumanaan taageerayaal markaas ninka Julius Malema oo inta badan jecel inuu buunbuuniyo uu galiyana energy dadka uu la hadlayo inta badan dhalinyaro amalaanta South Africa ay maraso 150 dhalinyarta ah ayaa waxa uu ku hadlaa luqadda la buunbuuniyay ee ay jecel yihiin dhalinyarta iyo dadkan inta badan bilaa amalka hadalka uu jeediyay ee ah Kill the Boers muxuu la jeedaa hadalkaasi waa hadal ku salaysan nacayb oo hadda ka horna qolooyinka xuquuqul insaanku ay ku eedeeyeen inuu yahay mid ku salaysan nacayb isagu marka wuxuu u bedelay waxaan u jeeday dhunkada dadka beeralayaasha markaas inta badan waa nacayb iyo inuu doonayo inuu ku soo caan baxo Kill the Boer macnaheedu waxa weeyaan in cadaanka beeraleyda ah oo loo yaqaan Afrikana in uu la jeedo in la laayo taas ayuu la jeedaa marka uu soo macnaynayna wuxuu dhahdaa waa heesaha iyagii halganka aan ku soo galay sidee marka siyaasiyiinta dalka ay ugu falceliyeen hadalkaas dad aad u tiro badan way ka biyadiideen inkastoo siyaasad ahaan ay taageersan yihiin Malema laakiin hadalkaas waxa uu ahaa hadal aad iyo aad ay uga biyadiideen qolooyinka cadaanka u dooda oo la yiraahdo African Forum oo inta badan dadka beeraleyda ah dallad ay leeyihiin way ka hadleen dacwana way ka gudbiyeen marka falcelintu waxay ahayd mid run ahaantii ay dad badan u arkaan inay sii baahinayso nacaybka u dhaxeeya dadyaga ku nool South Africa maadaama xisbigiisu ka mid yahay xisbiyada ugu waaweyn ee dalka hadalkan xisbigiisa ma saameyn karaa xisbigiisa runtii waxaad moodaa dad badan oo taageera in ay fikradaasi ay ka yara biyadiideen balse haddana xaqiiqdii markaad sheegto sidaan tilmaamay camalaanta South Africa ee waliba dhalinyarta haysataa waxay doonayaan isbedel inuu keeno ninka la yiraahdo Julius Malema marka wax kasta uu ku hadlo taageero badan ayuu sida ka muuqata maalinta dhaweyd ee loo dabaaldegay 10 sano guuradii ka soo wareegtay markii uu aasaasay xisbigiisa EFF oo kaalin weyn kaga jira doorashadan sanadka soo socda ka dhici doonta Koonfur Afrika kaasi waxa uu ahaa Saciid Fura oo si dhow la socda arrimaha Koonfur Afrika oo ii waramayay markana maandooriyaha xashiishka ah ayaa hadda la ogol yahay inay isticmaalaan dadka daadoodu ay ka weyn tahay 21 sano jirka ee ku nool gobolka Minnesota taasoo ka dhigaysa gobolkii 23aad ee ogolaada ama sharci ka dhiga isticmaalka xashiishka guud ahaan Mareykanka
iibinta iyo ka ganacsigeeda ayaa hadda u furan dadka ku nool aaga Red Lake ee bartamaha waqooyiga Minnesota. Cabdiraxmaan Mukhtaar, madaxa ururka Daryeel oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada, ayaa saameynta ay arrintan ku yeelan karto dhalinyarada Soomaalida ah uga warramay Siyaad Saciid Saalax. bishii shanaad 30keedii ayaa gobernatooraha gobolka Minnesota wuxuu si rasmi u saxeexay sharci sanadkan la hirgeliyay oo ay baarlamaanka labada aqalba gobolka Minnesota ay hirgeliyeen in la isticmaali karo xashiishada sharci ahaan. taas ayaa keentay maadaama bishii May 30keedii sharciga la saxeexay ilaa shalay oo bishu ay ahayd kow waxaa la sugayay si loo hirgelin lahaa sharcigaas, dadkana loo sii ogeysiin lahaa, looguna diyaar garoobi lahaa. taas ayaa keentay maadaama governorkii uu saxeexay si rasmi ay sharci u noqotay, waxaana bilaabatay kowdii bishii 8aad. waa gartay waxaa la saxeexay sharcigan baatiri bishii shanaad, waxa uu hirgelayaa oo wixii maanta ka dambeeyay ay xashiishadu u noqonaysaa wax siday sigaarka oo kale ay u isticmaalaan. marka da ahaan yaa isticmaali kara oo iibsan kara oo aan lagu qabsanaynin? da ahaan waxaa isticmaali kara dadka da'doodu 21 sano iyo wixii ka weyn ay tahay ayaa loo ogol yahay. waana waxay la mid tahay sida maandooriyaal kale oo sharci ahaan inta badan 21 iyo wixii ka weyn ayaa loo ogolaadaa. marka da'da loo ogol yahay sharci ahaan qofka gadan kara ama isticmaali kara da'diisu waa 22 iyo wixii ka weyn. sharci ahaan hore waxaa la sheegay in dawo ahaan loo isticmaali jiray ama dawo ahaan loogu ogolaa qofku inuu isticmaalo. marka kan la hirgeliyay shalay muxuu kaga duwan yahay kii hore ee gobolkan? kii hore 2014kii sharciga noqday balse hirgalay 2015kii wuxuu kan kaga duwan yahay. kaas qofku wuxuu ku qasbanaa inuu dhakhtar uu soo qoro qofkaas. qof walba dawo ahaan umuuna qaadan jirin. noocyada la isticmaalana inta badan saliid ama kiniin iyo qaab kale ay u samaysnaa, laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay qofkii ayaa waxa looga dhigay sharci ahaan inuu isticmaali karo isagoona dhakhtar uun u qorin. wuxuuna u isticmaalayaa maandooriye ahaan, recreation waxa ay dhahaan, oo madadaalo ama maaragtay maandooriye ahaan ayuu qofku u isticmaalayaa. tii hore baahi ayaa keentay oo ahayd qofkan inuu xanuun ama dawo ahaan u isticmaalayo. adigu shakhsiyan waxaad muddo daba socotay arrimaha wax ka qabashada dhalinyarada. marka dhib intee le'eg baad filaysaa in arrintan ay keeni karto xagga dhalinyarada iyo dhibaatooyinka iyo dembiyada ay galaan? arrintan halisteeda leedahay sababtoo ah maadaama da'da loogu talagalay ama da'da sharci ahaan qofka loo ogol yahay ay tahay 21 wixii ka weyn, dad badan ayaa waxay u malaynayaan marka la yiraahdo waa la sharciyeeyaa ama sharci waa si sharci ah ayuu qofku u isticmaali karaa inay dhalinyarada da'da yar ku dhiiradaan. sidaad ogtahay waxaa hadda dhib aan ku qabnaa maandooriyaasha kale ee opioidka iyo kiniinadii fentanylki. marka qofka la dhaho sharci ahaan waad isticmaali kartaa maandooriyihii, tan markuu qofku barto jirkiisa la qabsado saameyn waxay ku yeelan kartaa inuu maandooriyaasha kale ka waaweyn, drugs kale ka waaweyn qofku sii uu barto. saameynta ay leedahayna dhalinyarada hadda maandooriyaasha isticmaala iyo culayska naga haysta dhibka haysta marar badan sharci ahaan intii qofka qiyaasta intii loogu talagalay ka badan hadduu wato ama isagoo isticmaalay uu baawur kaxeeyo, mar walba ama khamri ha ahaato ama xashiishad ha ahaato ama noocay doonto ahaato maandooriyo, qofku isagoo cabsan ama maandooriyo isticmaala looma ogola baawur inuu wado. sidaad ognahayna dhalinyaradeenna inta badan baawur ayay kaxaystaan, baawur ayay wataan. kiniinadan xitaa hadda u dhintaa mararka badan meelaha ugu badan ee u dhintaan laga helo meydkooda ama markay dhintaan waa baawur ayay ku isticmaalaan, baawurka gudihiisa ayaa laga helaa. marka walaalka jira waxay tahay inay tan ay dhiirigeliso qofka dhalinyarada intuu geed ka boodo tala ka boodaa in arrintan ay u noqoto dhiirigelin si fududna ay balwadii maandooriyaashii ay ku galaan. waa garteen cabdiraxmaan, isticmaalka xashiishka ee dhalinyarada Soomaalida awal siduu ahaa maanta wixii ka horreeyay? dhalinyaradu inta badan xashiishada ayay ahayd waxay ka bilaabi jireen barwada. adiga muddo 5 sano hadda laga joogo waxaa bedelay waxa vapingka la dhaho, waa xashiishadii oo